Maanta waxaan baranaynaa casharkeennii warka qaybtiisii Part wuxuuna ku saabsan yahay Quick Access Toolbar-ka sida customization loogu sameeyo, sida wax loogu soo daro, waxna looga saaro. Marka ugu horeyso Start button-ka ku dhufo All Programs, Microsoft Office, Word 2013. Okay, blank document marka dooranaysaa. Marka Quick Access Toolbar-ka waa meeshaan kore sida falaarta hadeertan meesha aan ku taabanayo. Meeshaas waxaa la dhahaa Quick Access Toolbar. Waxaa loogu talagalay inaad dhaqso waxa rabtid aad ka samayn karto. Sida kasoo qaad haddaad inaad dhaqso aad wax printer garayso, inaad printerka meeshaas kusoo dari kartaa iyo wixii la mid ah. Marka falaartaasi baad ku dhufanaysaa yar dhankaaga midigta drop down kaasaa ku dhufanaysaa. Kadibna waxaad dooranaysaa Quick Print. Quick Print haddaad dooratid iconka printerka ayaa meeshaasi soo galayo. Haddaa rabtidna waxyaalaha kaloo meesha ku jirana waad soo gelin kartaa. Sida kasoo qaad draw a table oo kusoo dari kartaa. Ama haddii aad rabtidna wax badan haddaad inaad kusoo kordhisid sida more commands ka ku dhufanaysaa. More commands markaa ku dhufatid waxaa kusoo baxayo daaqadan yar. Marka daaqadani waxay ku tusinaysaa waxyaalaha adiga aad rabtid baad meeshan ka dooranaysaa, waad kusoo kordhin kartaa. Kasoo qaad meesha ugu horeysa choose commands from popular commands kuwa ugu caansan, command-yada kuwa wax amro kuwa ugu caansan. Ama waxaad dhihi kartaa all commands aad ku dhufan kartaa. kuwa hadeertaan inoo doorana dhankaagan kale customize Quick Access Toolbar-ka halkaanay ku jiraan. Marka haddaa rabtidna waa ka saari kartaa, remove waa ku dhufan kartaa. Kaa rabtid waa ka saari kartaa. Sida kasoo qaad printerka camal remove waa ka saari kartaa, laakiinse kama saarayno. Haddaa rabtidna midka ugu hooseeya draw table-ka calaamadan move up-kaas ku dhufanaysaa, kor baad geynaysaa ama hoos baad geynaysaa. Ama haddaa rabtidna file kaas ku dhufanaysaa. Then waxaa leedahay then file-ka waa kaa. File waxaa loogu talagalay markaad documentiga wax ka dhex raadinaysid in aad isticmaasho. Marka waa arkayna file haddii loogu soo darsamayo. Markaas kusoo dartidna waxaa leedahay okay markaad dhahdid saa ka aragtid meeshaasi file haddaa ku dhufato file-ku wuu soo baxayaa. File waxaa loogu talagalay in wax laga raadiyo documentiga. box-ka yar baa waxaad ku qoraysaa number-ka aad rabtid, page-ka ama waxa aad ka dhex raadinaysid wuxuu yahay, ama magac ama shay ha noqdo baa loogu talagalay. Marka Quick Access Toolbar-ka wixii aad kusoo dartayna waad ka saari kartaa. Sidee uga saaraysaa? arrow-gaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid waxaad leedahay Quick Printer-ka waad ka saari kartaa. wixii ka qaadi kartaa. Ama wixii aad rabidna more commands intaad tagto waxaad leedahay dhankaagan midigtaas kuwa ku jira dooranaysaa. Kadibna waxaa leedahay remove waa ku dhufanaysaa. Marka waxaad rabtid meeshaan ayaad ka saari kartaa. Sida kasoo qaad draw table-kaas aan marka hore kusoo darnay, remove waad dhihi kartaa. Marka kuwan kale kama saarayno. Then waxaa leenahay okay. Saa ka aragtid wixii kaloo dhan waa ka baxeen.
haddaa rabtidna dib aad u noqon kartaa, printerka waa soo dooran kartaa, waxaa rabtid oo kale waa kusoo dardari kartaa, draw tableka waa kusoo kordhin kartaa, waxyaalo kaloo badan oo kusoo dari kartaa, sida open filekan waa kusoo kordhin kartaa. open file haddaa ku dhufatid waxaad arkaysaa meesha faylasha laga furo ku keenayaa. Meeshaan waxaa loogu talagalay in markaa wax qortid how to use quick access toolbar. Waxaa loogu talagalay markaa wax ku qortid inaad meeshaas kor space aad ku dhufatid. Space haddaa ku dhufatid meesha save gareynta ku keenayaa. waa kaa marka quick access toolbar-ka faa'iido weyn uu leeyahay. saa ula socdaa isku day inaad practical ka sameyso.